وحوي كوين بيستاهشا أو أي جيدة علن كي كانت حمر علن كي كانت جمهورية الصومالية اسمه دي بي كانتي مدحونة يوح كوين با ويستاهشا هنا هانتي وحن ربا مركوجه الرئيسين إن فرصة نوقف فايدستو إن هنبليايو هشيس كتاريخي جاه شلي كسو إدلادي دلك جيبوتي ولا نهاية جمهورية جيبوتي وكأدنا دب يجليده iyo dib u bilaabida wada hadal inoo haga xal waara oo midho dhal ah in laga gaaro qadiyada Somaliland qadiyad soo jirtay bay ahayd dawladda federaalka Soomaaliya ay ku dhiiratay in wada hadal laga galo laakiin duruufo jira iyo xilliyo kala duwan awgood hakatay heshiis macno ku fadhiyo oo weyn oo la isku soo dhiiraday oo lagu dhiiraday in arrimaha masiiriga ah la waajaho ayaa shalay ku soo gabagaboobay waxaan hambalyeynaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud annagana xildhibaanada federaalka ee khaasatan ka soo jeeda Somaliland waa taageersanahay waanu ku garab taaganahay waxaanu leenahay madaxweyne hore uga soco waxa kaloon aad u hambalyeynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti oo aan leeyahay Djibouti iyo madaxweynaheeduba waa walaal jira gogasha ay fidiyeen oo mar labaad khaasatan Somaliland iyo Soomaaliya horena waa kii sanadkii 2000 ay u fidiyay madaxweynuhu wadamada Geeska Afrikana ka soo qayb galeen yagaleelkii dawladnimada Soomaaliya qaybta weyn ku lahaa ilaa shirkii carta waxaan leeyahay markaas aan ku dhiirano dhinacyadu waa inay ku dhiiradaan waxaan hambalyeynaa isagana madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi waxaan leeyahay godka ka soo baxa eelka qaadka ayuu ahaa gabaygii Hadraawi ku dhiirada xal waara Soomaaliya inaad la gashaan walaalihiin baa wax idin ka dhaxeeyaan walaalihiin baa tala idin ka dhaxaysa haddaydan ku dhiiranin oo aydan heshiis midhadhal ah gaadhinna meel dheer baa laga eegi doonaa dadkaas 150 sano halganka ka badan ee taariikhiga ah dawladnimo u soo galay ilaa mustacmaradda Ingiriiska waxaan leeyahay qaybta hadhay oo ah bil gudaheed in lagu guda galo in la magacaabo gudiyada farsamo ee xalka masiiriga ah ka soo shaqeyn doona waa in dawladda federaalkuna soo magacawdaa oo madaxweynuhu hogaaminayo Somaliland-na ay soo magacaabaan iyo madaxweynaheedu waxaan arkay dad khubaro oo dhinaca kale ka soo jeeda ambassador Awil Adna Ismaaciil oo run ahaantii taariikh dheer leh aqoon u leh xal waaro oo cuntamana keeni kara aan ku dhiirano hal la heshiiyo midnimo wadajir walaaltinimo taasa in anfacda dunidu maanta waxa ay u holanaysaa wax la yiraahdo global community of a shared future bulsho weyn oo mustaqbal wadaagta in adduun weynaha oo dhami uu noqdo taasa nolol ku dhex jirta iskaashiga wax dhala iskaashiga macna sameeya iskaashiga midho dhala waxa aynu eegnaaba waxa weeye insha Allah ta'ala muddaxileedka hadda ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo 11aad in xal waara laga gaadho qadiyada Soomaaliya iyo Somaliland wadajir iyo gacmaha oo aan isqabsanay inoo horseedo waa mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh intaasan ku soo gudub wax way ka weyn bay istaaheshaa oo ay geeyda calankay keentay xamar علن كي كانتي جمهورية الصومالية اسمه دي بي كانتي مدحونة يوح كوين با ويستهشا تاسينا أمد الصومالية بوتها مواطن كستو صوماليتنا ويالا وقيب كهانايو وحيابها يريرو هل كان محا كتشري هل كان محا كتشري وح معنا سمينا يما هو مهتنتي والسلام عليكم ورحمة